nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maka markuu soo galay dhinac walba ciidan buu ka soo gashay 4,000 ayaa lagu qiyaasaa marka dadka magaalada maka ku noolaa quraysh lugihii nabigeena hoosuugsadeen markaa buu nabigu ku yidhi maada tadunnuuna annii faacilun bikum maxaad maanta iga malaynaysaa inaan igu samayn buu nabigu yidhi quraysh waxay nabiga dhib u geysteen la og yahayna waa qoran tahay bilaal bay dhibeen cumar bay dhibeen abubakar bay dhibeen oo nabi maxamed bay dhibeen ma dheerayn 6 sano ka hor 8 sano ka hor bay ahayd qiyaastii maxaad u malaynaysaa maanta inaan igu samayn maxaad iga filanaysaan hal mar keliya inta sidaa u eegeen bay ku yidhaahdeen waxaan kaa malaynaynaa khayr waxaan u aragnaa inaad tahay walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay markaa buu nabigu ku yidhi aniguna maanta waxaan istaagayaa mowqif cajiib ah mowqifkee halkii nebi yuusuf walaalihii iyo qaxootiya markay u yimaadeen isagoo wasiirkii maaliyadda masra ayuu ku yidhi laa tathriiba calaykum alyawma yakfiru allaahu lakum wa huwa arxamu arraaximiin maanta wax laynaga aargoosanayaa ma jirto ilaahay dembigiinna ha dhaafo kuwa naxariista ka uu naxariis badan waa ilaahay sidii nebi yuusuf walaalihii uula dhaqmay ayaan aniguna maanta iniila dhaqmee aqalladiinna gala buu nebigu yidhi aamin baatin oo nabadgeliya buu rasuulku ku yidhi wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi may noqon aqallada kumay noqon reer intay u baxeen ayay nebiga saf u soo galeen iyagoo waa shahaadanaya yaa allah waa maalinta uu khaalid yidhi maanta waa maalintii hilibka waa maalintii quraysh la googoynayey ansaar saasay yidhahdeen ansaar markaa buu nabigu yidhi may cabbaas u sheega ansaar maanta maalintii dadka la gowracayo la laynaya ma aha ku dhammaanta waa maalintii naxariista wamaa arsalna naxariistaasaan u baahannahay maanta islaamnimadu inay naga noqoto dhaqan ujeeddo kale maaha waxa laynoogu yeedhay nimanka akhyaarta ee nagu dadaalay ee kulankaa inii qabtay ee culimmadana meelo badan uga yeedhay ku soo casuumay inay nila hadlaan wallaahi ujeeddo kale ma leh waxay leeyihiin keliya sidee diintani ay nolosheenna u timaadaa bas marka waxaan nagula dardaarmayaa nafteedana kula dardaarmaya inaan dadaalkaas ziyaadinno ducada badinno diintu ay naga noqoto maaragtaane ku dhaqan guryaheenna ubadkeenna gabdhaheenna diinta ku ababinno insha allah dhahada hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum waraxmat